asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhammaan daawadayaashayda sharafta leh. Waxaan in badan maqalnaa qisooyin ku saabsan dad in badan oo ka mid ahaa cimrigooda noolaa iyagoo wanaagsan oo ateeci jiray rabbigooda subxaanahu wa tacaalaa, balse nasiib darro markii geeridooda ay ka dhiman tahay sanad ama labo intay isbedeleen, gaaloobeen, kuna dhinteen faajirnimo iyo khaatumo xumo. Sidoo kale taa cagsigeeda waxaa jiraan dad in badan oo ka mid ahaa cimrigooda ku dhex noolaa macaasi iyo xumaan iyo waxyaabo badan oo Alle caro gelinaya subxaanahu wa tacaalaa, balse nasiib wanaag markii ay wax yar ka dhiman tahay geeridooda intay isbedeleen, towbad keeneen, kuna dhinteen iimaan iyo khaatumo wanaagsan. Balse xaddi intee la eg ayuu insaanku dhex dabaalan karaa faajirnimada iyo macaasida ka hor inta uusan Alle subxaanahu wa tacaalaa ka qadinin towbadkeenka iyo dembidhaafka? Waxaan muuqaalkan gudihiisa idinkugu soo gudbin doonaa qiso aad u layaab badan oo uu nabigeena Muxammad salawaatu rabbi wasalaamuhu calayhi inooga warramay, taasoo ku saabsan nin 99 qofood si xaqdarro ah ku dilay oo kadibna doonay inuu towbad keeno. Kadibna maxaa qabsaday? Daawasho wacan. Balse ka hor inta aanan bilaabin, haddii aad nagu cusub tahay fadlan ha iloobin janalka inaad subscribe saarato si aad inoo dhiiro geliso, gambaleelkana furo si ay kuu soo gaaraan muuqaaladeena xiga. Nabigeena Muxammad calayhi salaatu wasalaam ayaa wuxuu inoo sheegay in uu jiri jiray nin faajir ahaa oo ka mid ahaa banu Israa'iil. Shaytaan ayaa ninkan ka tambadiyey oo wuxuu caadaystay in uu sameeyo wax allaala wixii xumaan iyo macaasi ahaa isagoon midna ka tegin. Waxaana qalbigiisa wada qabsaday xumaanta iyo sharta, wuxuuna dhex dabaashay shahawaadka, wuxuuna dhex tiimbaday fasahaadka iyo xadgudubyada. Wuxuuna ahaa mid aanan ka labalabaynin dilka iyo dhibaataynta uu u geysanayo dadka kale, ilaa uu ka gaaray heer uu si xaqdarro ah ku dilay 99 ruux. Dhammaantoodna kuma jirin hal qof uu si xaq ah ku dilay, dhammaantooda wuxuu ku dilay dulmi iyo xadgudub. Dilkuna waa dembiga ugu weyn ee uu galo qofka bani aadamka ah shirkiga kadib. Allena subxaanahu wa tacaalaa wuxuu yidhi: waman yaqtul mu'minan mutacammidan fajazaa'uhu jahannam khaalidan fiiha وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. wuxuu yidhi Alle subxaanahu wa tacaalaa, qofkii si kas ah ku dila qof mu'min ah, abaalmarintiisu waa jahannamo, wuuna ku waari doonaa. Allena waa uu caroon doonaa, wuuna lacnadi doonaa, wuxuuna Alle u diyaariyey cadaab aad u weyn, walciyaadu billaah. Haddaba ninkan ayaa kadib markii uu in badan noloshiisa ku qaatay macaasi iyo xadgudub, wuxuu go'aansaday in uu bedelo noloshiisa. Waxaana qalbigiisa ku soo dhacday in uu u laabto rabbigiisa subxaanahu wa tacaalaa oo uu towbad keeno, isagoo rajaynayay in uu Alle subxaanahu wa tacaalaa u naxariisto oo uu ka towbad aqbalo. Balse maadaama uu ogaa in uu galay dembi aad u weyn, iyo isagoo ka cabsi qabay in Alle subxaanahu wa tacaalaa uusan ka aqbalaynin towbadiisa, ayuu wuxuu go'aansaday in uu u tago caalimka ugu weyn uguna caansanaa culimmadii xilligaas si uu ula tashado. Markaas buu in badan dadka waraystay, ilaa ugu dambayntii dadku ay u tilmaameen nin raahib ah oo caabid ah, kaasoo dadka gooni uga baxay oo ka tagay dhammaan macmacaanada iyo dhalanteedka adduunyada, wuxuuna dhistay mawlac inta uu nool yahay uu keligiisa ku caabudo rabbigiisa subxaanahu wa tacaalaa.
kadibna ninkii ayaa go'aansaday in uu aado halkii uu ku yaalay mowlacii raahibkan caabidka ah. kadibna wuxuu u kacay dhankiisa isagoo ku rajo weyn in uu ugu bishaarayn doono in uu Alle subxaanahu wa tacaala ka aqbalayo towbadiisa oo uu u dhaafi doono dembigiisan aadka u weyn. ninkan ayaa markii uu dhexgalay mowlacii wuxuu ku dhex arkay nin aad u wanaagsan oo ay ka muuqdaan calaamado muujinaya wanaagsanaantiisa iyo cibaado badnidiisa iyo ka saahididiisa adduunyada. wuxuuna mooday in mushkiladiisa xalkeeda uu ka heli doono agtiisa. markaas buu salaamay, balse wuxuu ka labalabeeyey oo uu garan waayey sidii uu raahibkan ugu sheegi lahaa su'aalihiisa. sidee buu ku dhihi karaa waxaan rabaa in aan towbad keeno kadib markii aan si xaqdarro ah ku dilay 99 qofood? balse intuu candhuufta dib u liqay oo addimadiisa isku keenay ayuu raahibka ku yidhi, anigu waxaan ahay nin in badan Alle ku caasiyey oo dhulka fasahaadiyey. waxaana dilay 99 ruux, dhammaantoodna waxaan ku dilay dulmi iyo xaqdarro. haddana waxaan doonayaa in aan towbad keeno, ma ii heli kartaa qiil ama rajo ah in uu Alle ii dembi dhaafayo, ama ma laga yaabaa in la iga aqbalo towbadayda? raahibkii ayaa aad ula yaabay oo rumaysan waayey wuxuu maqlay. wuxuu is yidhi, sidee buu nin intaas oo ummad ah si xaqdarro ah ku soo laayay ugu dhiiraday inuu dalbado cafis iyo dembi dhaaf? markaas buu aad uga naxay oo si caro iyo xanaaq ku jirto ku yidhi, waxaad soo dishay 99 ruux oo aanan waxba galabsan, waxaadna doonaysaa in aad towbad keento. tani waa arrin la yaab badan. waa shaki la'aan in Alle subxaanahu wa tacaala uusan ku aqbalaynin towbadaada. faajir yahoo mufsidka ah, taasi uma baahna in aad caalim iyo cid kaleba weydiiso. raahibka hadalkiisa ayaa ninkii maqalkiisa ku noqday sida dab baasiin lagu shubay oo kale, taasoo ahayd wixii uu ka baqayay. markaas bay noloshii ku madoobaatay oo qalbigiisana ka buuxsameen xiqdi iyo xanaaq. caqligii ayaa ka tagay, wuxuuna qalbigiisu noqday dhagax. markaas buu intuu seeftiisa galka ka baxsaday raahibkii qoorta kaga dhuftay. isla markiina wuxuu raahibku dhulka ku dhacay isagoo meyd ah. wuxuuna sidaas tiradii dilalkii uu geystay uga dhigay 100 ruux. kadibna wuxuu soo laabtay isagoo ku khasaaray oo wejigiisana ay ka muuqatay murugo aad u fara badan. wuxuuna aaminay in uusan towbo lahayn oo uu naar ku dambayn doono. kadib markii uu muddo ku sugnaa xaaladdaas ayaa ninkan nasiib wanaagiisa waxaa mar kale niyadiisa mashquuliyey oo ku soo laabtay oo uu ka quusan waayay arrinta towbadiisa. ma doonayo inuu noloshiisa kusii dhammaysto isagoo ah caasi mutajabbir ah. markaas buu mar kale dadka weydiiyey qofka ugu cilmi badan dadkii xilligaas noolaa. markaas bay qaar ka mid ahaa dadkii wanaagsanaa u tilmaameen nin caalim ah oo aad loo yaqaanay oo uu Alle subxaanahu wa tacaala fadli iyo aqoon fara badan siiyey. markaas bay ninkii rajadiisa mar kale soo noolaatay, wuxuuna si degdeg ah ugu jihaystay halkii uu caalimkaasi ku sugnaa, isagoo raadinaya in uu soo helo war qalbigiisa farxad geliya. markii uu u tagay ayuu ku yidhi, anigu waxaan si xaqdarro ah ku dilay 100 qofood. waxaana doonayaa in aan towbad keeno oo aan u soo laabto Alle xaggiisa. ma laga yaabaa in la iga aqbalo towbadayda? markaas buu caalimkii intuu dhoola caddeeyey ku yidhi, haddaan ku idhaahdo Alle kama towbad aqbalayo qof u soo laabtay oo u toobad keenay, been baan kuu sheegay. yaa idinkala dhex geli kara adiga iyo towbada?
markaas buu ninkii caalimka jawaabtiisa aad ugu farxay farxad uusan weligiisa arkin farxad la mid ah, waxaana qalbigiisa ka buuxsamay farxad aad u weyn iyo rajo uu ka rajo qabay Alle naxariistiisa subxaanahu wa tacaala iyo dembi dhaafkiisa. markaas buu caalimku ku yidhi, laakiin bishardi, waa inaad ka tagtaa qaryadaas xun ee aad ku noolayd, waxaadna aaddaa qaryo noocaas iyo noocaas ah, maxaa yeelay waxaa ku nool dad wanaagsan oo Alle caabudaya. adiguna u tag oo Alle la caabud, waxaa laga yaabaa inuu Alle kuu dembi dhaafo subxaanahu wa tacaala, hana u soo laabanin dhulkaaga, maxaa yeelay waa dhul xun. ninkii ayaa u mahadceliyey caalimka, kadibna si degdeg ah intuu ku soo baxay ayuu xerxertay alaabtiisa, kadibna waa uu soo baxay isagoo u safrayay qaryadii uu caalimku u tilmaamay. markii uu soo gaaray kalabarka safarkiisa ayaa waxaa dhacday intii Rabbi ay u timaado oo uu halkaas ku geeriyoodo. kadibna waxay malaa'igtii cadaabka iyo malaa'igtii jannada ku doodeen koodii u xaq leh. malaa'igta cadaabka waxay dhaheen, waa nin weligiisa wax khayr iyo wanaag ah aanan samaynin. malaa'igtii jannadana waxay dhaheen, wuxuu halkan yimid isagoo si niyad ah u toobad keenay oo Alle u soo laabtay subxaanahu wa tacaala. kadibna wuxuu Alle subxaanahu wa tacaala u soo diray malag leh suurad bani aadam oo kale. markaas bay u bandhigteen doodooda si uu ugu kala xukumo. markaas buu ku yidhi, waxaad qiyaastaan inta u dhaxaysa labada qaryo, midda uu ka yimid iyo midda uu u socday, kadibna meesha uu u dhow yahay raaciya. ninkuna wuxuu u dhawaay qaryadii xumeed, balse Alle subxaanahu wa tacaala wuxuu ogaa niyadiisa iyo sida dhabta ah ee uu u toobad keenay. Alle ayaa dhulka u dhaqaajiyey dartiisa. wuxuu Alle subxaanahu wa tacaala qaryadii xumeyd ee uu ka soo baxay ku amray in ay ka fogaato, qaryadii wanaagsanayd ee uu u socdayna wuxuu ku amray in ay u soo dhowaato. markaas bay malaa'igtii markii ay qiyaaseen waxay arkeen inuu hal taako u dhow yahay dhulkii wanaagsanaa ee uu u socday. markaas bay raaciyeen ahalkeeda. Alle ayaa subxaanahu wa tacaala towbadiisa ka aqbalay oo u dembi dhaafay. Allena subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi, qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnatuu min raxmati illaah ina allaha yakfiru adunuuba jamiica innahu huwa algafuuru alraxiim. addoommadayda kuwooda naftooda dulmiyey waxaad ku tidhaahdaa, ha ka quusanina naxariista Alle. qofkii u toobad keena, Alle waa uu u dhaafaa dhammaan dembiyadiisa. Allena waa dembi dhaafe naxariis badan. si walba oo uu dembigu u weyn yahay, waxaa ka sii weyn Alle naxariistiisa subxaanahu wa tacaala. towbadana waxaa u shardi ah in ay qalbiga ka timaado, iyo in qofku uu go'aansado in uusan ku laaban doonin dembigan. nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi, Alle subxaanahu wa tacaala wuxuu gacantiisa fidiyaa habeenkii si uu addoommadiisa u dhaafo dembiyadii ay galeen maalinkii. maalinkiina wuxuu fidiyaa gacantiisa si uu ugu dhaafo dembiyada ay habeenkii galeen, ilaa qoraxdu ay ka soo baxdo halkii ay u dhacday. waxaana xadiiskan wariyey Muslim. waxaan filayaa inaad ka wada faa'iidaysateen muuqaalkan. haddii aad ka faa'iidaysatay, fadlan ha iloobin in aad like saarto oo aad u sii sheergarayso asxaabtaada. haddii aad nagu cusub tahayna, fadlan ha iloobin janalka inaad subscribe saarato si aad inoo dhiiro geliso, gambaleelkana furo si ay kuu soo gaaraan muuqaaladeena xiga. hada wallahu subxaanahu wa tacaala aclaa wa aclam. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.